السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم dhammaan asxaabta iyo ardayda ku xiran page-ka Facebook iyo YouTube-ka lama huraan IT. Waa anigoo ah Engineer Axmed Xasan Qamaan. Waxaan ku soo qaadan doonaa casharkiina maanta How can you see your internet Wi-Fi's password? Sidee u arki kartaa internetka wireless-kaaga passwordkiisa? Wireless-ka waxaan uga jeedaa laptop-kaaga ama desktop-kaaga wireless-ka kugu jira. Sidee baad u arki kartaa passwordkiisa? Casharkaas aynu ka hadli doonaa. Wixii commenti ah igu dhaaf email-iskan qamaan778@gmail.com, sidoo kale lamahuraan80@gmail.com, sidoo kale axmed@masnain.com, ama telefoonka gacanta 4435158. Okay, casharkiina iska bilaaban doonaa. Okay, Windows 8 iyo Windows 7 labadaba iyo Windows 10 baad ku heli kartaa systemkan. Waxaad samaynaysaa wireless-ka kugu jira computer-kaaga. Haddii wireless ku xidhay mid baana igu xidhan, click baan siiyey, kan baa ku xidhan. Okay, marka kan igu xidhan sidee baan u eegi karaa passwordkiisa? Laba hab waan samayn karaa. Marka labada hab waa inaad si fiican u eegtaan. Hab waa kan ugu fudud. Halkan baad click siinaysaa wireless-ka, kadibna wireless-kan kugu xidhan ee connected-ka ayaad right click siinaysaa. Right click markaad siisid, halka waxaa kuu soo baxaya view connection properties. Click baad siisay. Halkan waxaa kuu soo baxaya dialog box. Dialog box-kaasi wuxuu sheegayaa connection iyo security. Marka inuu kan u baahanay waa security. Connection-kan uma baahnin. Security-ga wuxuu noo sheegay WPA2 personal inuu yahay security type-kayga. Sidoo kale encryption type-ku uu yahay AES. Network security key kan u baahanahay waa kan. Halkaas ayaan tigta saaraynaa show characters. Wuxuu noo sheegi doonaa password-ka ku xidhan wireless-ka. Waa Somaliland 21 iyo 5 Okay, password-ka igu xidhan wireless-ka waa intaa. Haddaan tigta ka qaado wuu isbedelayaa. Qaabkaasi waa mid. Qaabka labaad waxaan dooranaynaa halkan ayaan right click siinaynaa wireless-ka. Then waxaan dooranaynaa open network and share center. Kan ayaanu dooranaynaa. Click baanu siinay. Okay, haddaan halkan ku dhufanno Wi-Fi aan click siino, wuxuu noo soo saari doonaa dialog box. Dialog box-kaasi wireless properties markaan click siino, wuxuu noo saari doonaa qaabkii markii aanu dooranay. Okay, waa wireless properties. Marka kan uma baahni, waxaan odhanaynaa change adapter settings. waa habkii kaas waan soo dhaafnay. Right click siinayay view connection properties, dadna kaa click la siinayay. Kaama waan soo dhaafnay oo inaan ku noqono ma rabno. Qaabkan kalena waad ku ogaan kartaa Wi-Fi inaad click siisid, dabeetana aad wireless properties tiraahdo security. Inta waad ku ogaan kartaa. Waxaan odhanaynaa change adapter settings. Click baanu siinay. Wi-Fi kaasaan dooranaynaa oo password-ka waxay nagu xidhan wireless baa nagu xidhan waa Axmed HY. Password-kaas wireless-ka ku xidhan Wi-Fi-ga induna password-kiisa ogaano. Right click baanu siinaynaa. Right click ayaanu siinaynaa. Waxaan dooranaynaa status. Wadadii buu nagu soo riday markii. Waxaan odhanaynaa wireless properties. Then security show character. Marka qaabkaasi haddii uu kula dheeraado
qaabkan baa ka fudud inaad click siisid deedna aad wirelesska right click tusha ka siisid view connection properties aad doortid marka deedna halkaad tagto saarto intaas weeyaan. Okay, waxaan u malaynaya inaan isla fahanay casharka. waxaan idiin rajeynayaa khayr iyo Ramadaan Kariim. waa anigoo ah injineer Axmed Xasan Qamaan. waxaan idiin tegay sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaad like siisaan page-ka, sidoo kale waxaad dooran doontaan watch video halka ku qoran tahay. wuxuu ku gudbin doonaa casharadayna complete oo YouTube-ka. halkan waxaad siin doontaa subscribe. sidoo kale videoga markaad casharka daawatid halkan hoosaad subscribe ka sii doontaa, labadoos ka mid. dad halkan ka sii siyaarkaba subscribe baad oran doontaa. okay, waa subscribe baad oranaysaa. marka subscribe markaad siisid wuxuu kusoo geli doonaa halkan baad ka arki doontaa. marka mar walba ha ilaawin inaad subscribe siisid, page-ka like siisid, watch video aad si fiican u daawatid casharadii oo complete oo YouTube ku jiro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.